بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة مروين بكسر لواذا ورالكي عالمك نوصل عليه هل كان وايدا عدا متشرنك صوت الحيس صوت لواذا مدينة مروين ستوكهولم maxkamad ku taala Sweden ayaa jimcihii maanta ahaa xukuntay 3 sano iyo 3 bil oo xabsi ah ku riday nin lagu helay inuu ku biiray kooxda Daesh IS taas oo ka dhigan kiiskii ugu horeeyay ee lagu xukumo kamid noqoshada koox argagixiso tan iyo markii la meel mariyay sharciga cusub. ninkan jirka ah oo lagu helay dambiga ka qaybgalka ururka argagixisada maalgelinta argagixisada iyo 3 mar oo uu u safray dalal shisheeye oo ujeedooyinka argagixis sida darteed sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maxkamaddu waxay cadeysay in dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay ay la xiriiraan Daesh safaraduna ay dhammaantood ahaayeen Soomaaliya. waxaa lagu riday 3 sano iyo 3 bilood oo xabsi ah. kiiskan ayaa ah kiiskii ugu horeeyay ee lagu xukumo ka qaybgalka ururka argagixiso tan iyo markii baarlamaanka Sweden uu ansixiyay sharciga cusub 2023. Sweden ayaa xoojinaysa shuruudaha la dagaalanka argagixisada tan iyo 2017 kadib markii qof u dhashay Azerbaijan oo daacad u ahaa Daesh uu gaar ku jiirsiiyay dad marayay wado ay mashquul badan oo ku taala Stockholm halkaas oo ay ku dhinteen 5 qof. si kastaba ha ahaatee sharciga mamnuucaya kamid noqoshada kooxda argagixisada ayaa loo baahday in marka hore la bedelo dastuurka Sweden maadaama uu ka hor imanayo xorriyadda ururaysiga ee dalkaas. ansixinta sharcigan ayaa sidoo kale ku soo aaday xilli Turkiga uu hakad geliyay dadaaladii Sweden ay ku doonaysay inay ku biirto NATO iyadoo Ankara ay ku adkaysanaysay in Sweden ay tallaabo adag ka qaado kooxaha xagjirka ah kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine iyo Sweden kadib duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine Sweden waxay soo afjartay 2 qarni oo ay ka fogaanaysay isbahaysiga ciidan waxayna codsatay inay ku biirto NATO bishii May 2022. ugu dambeyntii waxay si rasmi ah xubin ugu noqotay Maarso 2024. caawa warkaan loo haynaa intaas ayuu ku eegyahay wixii wareer dambana wayna soo socodsiinayna badana wararka waxaan ku soo xulanaa wararka rasmiga ah ee biya kama dhacaanka fadlan nagu soo biira oo naga mid noqda subscribe-tiga iyo share-kana nagu soo biiriya waa mahadsantihiin wararkeedu oo idin leh mudane iyo marweynba. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.